weli ma aragtay ama ma isku aragtay adiga in neeftu in badan ay ku qabanaydo oo naqasku uu kugu dhagayo waliba si mataqaana soo laalaabasho ah waxaan maanta ka hadli doonaa mowduuc muhiim ah kaasi oo ah asma ama waxa la yiraahdo af Soomaaliga lagu yiraahdo neefta waa mid kamid ah xanuunada inta badan dadku ay la dhiban yihiin runtiina faham badan aysan ka haysan waa xanuun ku dhici kara ilmaha yar iyo xataa qof weyn intaba waxaa la sheegaa inta badan ilmaha ku dhasha miisaankooda uu hooseeyo kale ama korriimadooda ay hooseeyo wax loo yaqaano AUGR ko kale ama ilmaha inta badan la sheegay in bilahooda ay hooseeyaan oo kale ay bilahooda aysan dhameystirmin ka wadaa inay u nuglaadaan mustaqbalka ayaa la sheegaa neefta oo waxay ka mid yihiin ilmaha inta badan u nugul neefta inta badan neefta waxaa lagu yaqaanaa in ay qofka ku sababto in naqasku uu ku dhago waliba inta badan haddii uu la kulmo xaaladaha qaar sida haddii wax environment ay la xiriira sida qaaca rafoomka iyo boorka iyo waxyaabaa la halmaala ay mataqaana yimaad ama xataa infectionada qaar sida kuwa virusku ay sababaan ama waxyaabaha ku dhaca infectionada ku dhaca habdhiska hawmareenka sidoo kale dadka qaba waxyaabaha xasaasiyadda inta badan samcuranka oo kale waxay keeni karaan inta badan inay neefta ay ku kiciyaan waxaa inta badan la sheegaa neefta in hab dhaxal ahaan ah ay qofka ugu soo gudubto oo haddii familka qaybo badan oo ka mid ah ay qabaan neefta ama ay leeyahay daran yihiin waxaa dhici karta inay mataqaana adigana xaggaada ay u soo gudubto aad noqoto qof u nugul in xanuunkii neefta uu ku dhaco sidoo kale waxaa la sheegaa waxyaabaha mataqaana bii'ada inay qofka nugliyaan oo haddii shay keeni kara inta badan in caabuq uu ku yimaado tubooyinka sanbabka uu kugu soo laalaabto ama waxa la yiraahdo triggers ay kugu noqdo ku saameeyo waxaa la yiraahdaa qofku wax ku imaan kara wax la yiraahdo neefta fahamkeedu waxa weeye in shaygaas mataqaana ku dhibay ama virus ha ahaado ama wax banaan ka yimid ha ahaado markii sanbabka uu gaaro tubooyinku ay sameeyaan falcelin ay sameeyaan falcelintaasna difaaca jirka ayaa inta u badan sameeya halkaasna waxaa ka imaan kara caabuqaasna inta badan wuxuu ku yimaadaa tubooyinka in ay bararaan oo kale kadibna dhicaan uu ku samaysan qoyaan oo kale kadibna halkaas waxaa ka imaanaya qofka neeftii inuu ku dhegto oo waxa la yiraahdo mataqaana in neeftii ay ku ceshooto ay imaan kartaa inta badan wuxuu qofka isku arkaa in naqasku ku dhagayo kale sidoo kalena uusan hawo qaadan karin ama xitaa uusan soo tufi karin waxaa la sheegaa inta badan intacaal leedahay aysan daawo toos lahayn oo boqolkiiba boqol yiraahdo qofku intaanu daawada ugu roonanaya laakiin daawooyin tacaal ayaa jira sida daawooyinka loo qaato neefta ee commonka ah ee caanka ah laba nooc ay isugu jiraan si guud ahaan kuwa waa kuwa la yiraahdo inhalers oo qofka mataqaana uu hawo ahaan uu jiito iyo kuwa kale oo yareeya caabuqa oo loo yaqaano corticosteroid inta badan waxaa muhiim ah dadku inay la xiriiraan dhakhtar haddii isku arkaan neeftu inay kusoo laalaabanayo ama neef qabatinku uu kusoo laalaabanayo si xataa uu yaraan loogu bayaaniyo waxaan inay yihiin neef ama aysan ahayn waxaa kaloo muhiim ah qofku inuu ogaado haddii laga sheega xanuunka neefta ama xataa familkiisu ay qabaan asna uu isku arko kale dhakhtarkan oo daawona loo soo qoro inuu ogaado daawadaasi inay tahay daawo laga yaabo una badan tahay inta badan inuu wadi doono oo aysan habboonayn qofku inuu iska joojiyo daawada waxaa kaloo muhiim ah qofku inuu iska waardiyeeyo waxyaabaha keeni kara inay ku kiciyaan mar kale neeftii ama ay triggers ahaan u noqdaan sida waxyaabahan soo sheegnay oo environmentiga ama bii'ada la xiriira qaaca iyo boorka iyo sigaarka meelaha lagu cabayo kale waxaas qofku inuu ka fogaaday barafuunada oo kale si mataqaana aysan xanuunkii neefta aysan ugu soo laalaaban intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena maanta wasalaam